laynii doortay waxa weeyaan maskax baa laynii doontay cilmi baa laynii doortay aqoon-yahanimo laynii doortay xilkasnimo lagu doortay inaad meel walba ka soo baxaysa imisa shaqada magaalada kuwii ka baxay baa wada jooga waan ka qori lahaynay inagaan inay door bidnay waxa laga rabaa akhlaaq baa laga rabaa meelaha lagu qorayna dadka waxaad kula macaamishaa akhlaaq fiican waa la idin la wareegay si wanaagsan oo sharaf leh ayaa laynoo qabtay idinna waxa la idin ka rabaa meel kasta tago kaadhka la idin dhiibi doonay la idin ku aaminay qofkii u geeyay la idin siisanayda qof kale ku shaqo lahayn hawsha sidii u fuliya la yiri wala musuq baan soo galeyn wala qof jeclaysi baan soo galeyn mas'uuliyadda koowaad siyaasiyiinta ma saarra maanta axsaabtu waa goobjoog un badankoodu idinka ayaa halka shirki u fadhiya yaan cabasho laga imanin sidii la idinku aaminay idinkuna amaanadii u fuliya amaana wax ka culisa ma jiro yoomal qiyaamaha saaray waa mas'uuliyadii ugu weyneed ee ilaahay marka la idin saaray badankeeda imaka mas'uuliyadda idinka naftiina saarayd maanta mas'uuliyad cusub oo baa la idinku kordhiyo masiirkii dalkana la idinku ayaa la idinku aaminay waa garsoorayaashii qarankeenu nahay maanta aami doontaa 4 maalmood ba insha Allah inoo soconaya tababarku 23 bisha ilaa 26 bisha laba maalmood iyo laba maalmood baa loo kala qaadan doonaa labada maalmood hore waxa la tababari doonaa 242 labada maalmood dambana 243 arday iyo arday kale ay nagu talagal hadii Ilaahay ka dhigo in iyaguna ay idin kaabaan laakiin guud ahaan intaas ay noqon doontaa hadii Allah ka dhigo taas inaynu ogaano 4 maalmood markay inoo dhamaadaan haddana waxa daba socon doona 26 inoo dhamaanaysa waxa ku xigi doona haddana xafladeena ugu talagalay guud ahaanba gobolka inaynu u sheegno maalinta ay bilaabmayso kaar qaybintu oo 29 bisha ah xafladu waxay inoo bilaabmi doontaa 27 28 waa maalinta goobaha aad tagi doontaan ee goobaha loogu talagalay inaad joogtaan si 29 bisha aynu u bilowno marka kaar qaybinta kaarka ugu horeeya aad u bilowdaan marka waxa ku darsanaysaan qorshaha ayaamahaas inay sida isku daba socdaan xafladana إن شاء الله والدي ورجلين دوانا حتى الله كديو سمركا إنتي نبضان أما دمانتين بعد وقصة قيب كشان دي الهاي كديو ويا مالن تاسوا مالن تيجود بيسي هاي نقول تلاقينه إن نقول بالكوش يجينا تتكتيجي لو قلت تلاقي حوشنا نقبتنا إن يدين كيجين حدي إنه مركا تبغوا يرى لابنا قوبها تيجي دونتان قوبها وحلو سمي قدومي يال قدوميها قوبت يسقى مسؤول كقوبت wuxuu mas'uul ka yahay dadka iyo dunyada wixii halka la dhigaba gudoomiyaha mas'uulka ah oo laga xisaabtamaya qof kasta oo soo gala gudoomiyaha mas'uulka ah kulli waxa la idinku tababari doonaa oo waxyaabaha imika aan ka hadlayo tababarka la idinku siin doonaa waxa jira dad loo ogol yahay inay soo galaan goobta iyo dad aan loo ogolayn dadka loo ogol yahay waxa number 1 ka ah oo xuquuqda ugu horeeya yeelanaya qofka la siinaya kaarka kaasa number 1 inta kale waa shaqaalihiina jooga dadka kale ee soo gali doona waa dad la soo siin doono oo galaanshiyo ama waxyaabo cadeynaya inay idin soo booqan karaan ama ay meesha wax ka qaban karaan xisbiyada oo kale cid ka socota waxa la soo siin doona aqoonsi dad badan oo waxa jira iyagu aan aqoonsi idin ka baahnayn laakiin tixgelin u baahan inaad garataan hadii saddexda gudoomiye oo kale idin yimaadaan xisbiyada daba wada garanaysaan marka mudnaanta waad siin kartaan barasaabka gobolka oo kale waad garanaysaan waxay marka qofka sidaas oo kale loo garanayo ee aynu u shaqeeyno xisbiyada iyaga inuu shaqeynayna dadka aynu tartanka gelinayna waa iyaga kaararka iyaga daraadood baynu qaybinayna marka saddexda gudoomiye mudnaan bay leeyihiin barasaabka gobolkuna mudnaan buu leeyahay inta kale ama saxaafadda ha noqoto waxa la soo siin doonaa markaasi kaarar ay ku soo galaan xisbiyada laftooda hay'adaha kale ee iyaguna maxalliga ah kuwa wadaniga iyo kuwa kale international labadaba iyagana waxa la soo siin doonaa kaarar ay ku soo galaan ogolaanshiyo si ay markaa idinka qaataan oo soo galaan ciidanka laftiisa booliska jooga goobta maalinta adiga ka mas'uula gudoomiyaha cid haba yaraatee goobta uga sareysa ma jirto inta shaqadu socoto oo waxyaabaha la idinku tababari doono kulli labada maalmood tababarka la idin siin doono shaqaalaha goobta jooga shaqaalaha qof walba wuxuu yeelan doona mas'uuliyado u gaar ah waxyaabaha muhiimka ee qofku mas'uulka ka yahay wax way kaarkii qofka la siinayay kaararkii baa lagu keenayaa oo xidhan waa inaad tirsataa waa inaad goobtii dhigataa waa inaad xafidaa waxa kale oo jira foomamka aad hadhowto qofka ka saxiixi doonta aad siinayso kaarka
kuwaasina halkii kuu yaalaan iyo meeshay kuugu xafidan yihiin ilaa shaabadoodii waxa ka mas-uula qofka guddoomiyaha qofku wuxuu kuula imanayaa waraaqdii maalintii la siiyey isdiiwaangelintu ay bilaamaysay ee qofku uu iska diiwaangeliyey goobtii uu joogay waa inuu qofku kuula yimaadaa warqadda meel baad dhigaysaa adigaa ka mas-uula markaa mas-uuliyadaha idinku soo socdaa maaha mas-uuliyado sahlan waxa weeyaan waa mas-uuliyaddii suurtagelinaysa inaynu doorasho xor oo xalaalo lagu farxo aynu qabanno mas-uuliyadda inoo suurtagelinaysa baa laydinka rabaa waana intiina halkan fadhida inta mas-uulka ka ah gobolka awda doorashadu sida ay uga dhici doonto intiina mas-uulka ka waa intiina imika halkan fadhida waxaanay ku xidhan tahay kaadhka nidaamka aynu u qaybin iyo habsamida loo qaato aynu ku dadaallo markaa in la fududeeyo safafka sida loo taagan yahay iyo nidaaminta iyo sida dadku usoo kala gelayaan iyo kaadhka in la fududeeyo bixintiisa fududeynta ugama jeedo dadku waynu iska siisiinaynaa si xaqa ayaa loo siinaya oo sharciya waxaad isku eegaysaa qofka sawirkiisii iyo waxaad isku eegaysaa qofka wejigiisa dad badan baa aad iyo aad isugu dhadhow oo wejiyadooda ay isku eegyihiin dadka waxaa lagaa rabaa markaas sidaad adigu u kala garan lahayd laba qof oo isku eeg ama magacoodii isgaranay haddii qofku u yimaado ku idhahdo waa aniga maxaad ku kala cadaynaysaa intii qofku uu qaatay kaadhka kabacdi haddii wejiga qofku wax kaga dhacay oo uu ku yimaado qofku isagoo calaamada kule wejiga miyaad iska siinaysaa waa inaad hubiso markaa oo aad tidhaahdo kaadhkan ma lihid ama aad eegto aad caddayso magaciisii waayo qofku wuxuu qortay maalintuu dhashay wuxuu qortay magacii hooyadii afran magaciisii afran waxyaabahaasoo dhan haddaad xitaa ka shakido lafteeda waa inaad tidhaahdo soo kaxayso cid ku garanaysa aad adkayso yacni kaadhka si aad u dhiibayso laakiin aanay kaa noqonin qofkan wuu eegyahay ee ha loo dhiibo kaadhka markaa mas-uuliyadda kaadhka lagu bixinayo waa mas-uuliyad aad iyo aad u adag mas-uuliyaddaasna idinka ayaa u xil saaran maalinta laydinku wareejiyo wixii ay ka bilaabanto ardayda waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliyaan waqtiga xilliga loogu talagalay in la bilaabo kaadhka ilaa iyo waqtiga loogu talagalay inuu soo xidhmo aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa inay ilaaliyaan waqtiga ilaaliyaan qofkii gaadhi raacaya kii lugaynaya kii si kale ku gaadhaya yacni qof waliba inuu kusii talagalo muddada goobta uu ku gaadhayo waayo waqtiga ay furmayso iyo waqtiga ay xidhmaysaba qof walba waa loo sheegi doonaa qof walibana wuu hayaa yacni dadka wax garanaya ee idinka ah baa imaka dadkaa loo diraya markaa taasina waxaa looga baahan yahay inay runtii dee wanaag iyo wixii qof aqoonyahana looga filayey in ay dadkaasi fariintaa aad gaadhsiisaan ayaa laga filaya haddii kaadh si qalada kaaga baxo waxa aad seejisay qof xuquuq u lahaa inuu cid doorto oo weliba laga yaab ilaa qofkaa dooranaya qof wanaagsan inuu ahaa markaa waxba maa tarin haddii kaadh aad ama oday caaqilo u dhiibto ama si kale cid aad ugu dhiibto waxba maa tarinoo qof baad xuquuqdiisii seejisay waxa berigii hore dhacay dad baa intay kaadharka cid kale u dhiibeen buu qofkiina gaadhsiin waaye codkiisiina ku dhiiban kari waaye marka waa waxaad khasaarisay weeyaan marka waxaynu rajaynaynaa insha allah biidnillahi kariim qofkaa miskiinka ah ee waqti badan ku soo bixiyey ama beertiisii uga yimi ama meheradiisii uga yimi ama xoolihiisii uga yimi inuu kayuyadii dheeraa maalintii hore laisku diiwaan gelinaya uu ku galo inaydaan kaadhkiina seejin oo qof walowba mas-uuliyad aad leedahay aanad ku seejin si qofkaasi u helo taasaynu rajaynaynaa waxa kale iyaduna inaga horeeya maalintan aynu dhahno deploymentka ama maalinta la rarayo waa maalin culays badan waa maalinta runtii aynu xataa ka dhiganay xagga inay shaqo inoo tahay had iyo jeer markuu qofku 8 yimaado ee laga yaabo hablaha qaarkood baan arkayo kale 7 habeenimo 6 baxayay maalintaasi waa maalin shaqo iyaduna culayskeeda iyo adkeysigeeda hal la yeesho iyo inaan oran maalinta shaqada waxa filay markaba in saacad lagu dirayo waxay u kala horeynayaan degmooyinku sidoo kala fog yihiin log haya iyo saylac iyo kuwaas horeyn doona deetana baki iyo deetana waxa ku xigi doona goobaha hoos yimaada Boorama marka taasi waxay u baahan tahay in maalinta laftigeeda adkaysi hawleeyeen amaba aynu u yeelano waxa iyaduna dhici karta imaka sidii hore ay ka yar duwan waxa kamid ah dadka ku soo booqanaya waxa kamid ah xisbiyada barigii hore xisbiyadu goobtayna la taagnaay goob kasta oo jirta waxa jirta xisbiyadu inay fadhiyeen imaka waxa dhici karta xisbiyadu inaanay fadhiin laakiin dad booqanaya ay ku yimaadaan oo goob kasta aan sugin marka kale tababarkana way idin ku jirtaa waana la idin tusi doonaa goobtu xisbi uma xidhmayso marka aad waqtigaagi gaadho waad bilaabmaysaa xisbiga hadhow ku soo booqanaya niman waxa jiri doona kormeerayaal xisbiya iyaguna waa in ay sitaan kaadhkii ay meesha ku soo booqan lahaayeen
بريجي هرا وينجي سجدني قفك قدوميها قوبتين أنا صحافة ديو وحال هذين ويسقوا هل أنا كتاك هذين سيدو كلنا وح حق قرصون كوه إن أتيرا كارر كأد بحسي أتشكتو taas ayay laftigoodana xog qarsoona hadii aqal kasta ku yimaado tareer kaygii misaaqaatoodu sheegto wax laga yaabo culays badan baa ku koraya marka waa xogta ku qarsoon bay ay ka mid tahay midna ogaado qofka goobta ku qaadan waaya hadhow hadana degmada ku qaadanaya marka gaar kaga khasaaray ma ahay hays oran adigoo faramaran meeshii ka kaalayo xoolaha wada iibi ama wada bixi hays oran laakiin isdiil degmada ku haystaan 14 cisho kale ay ku bixinayaan ay ku haystaan waxaan filayaa markaynu magaalada joogno hablaha u badan culays badan bayna haysan doona dhinaca kuyada dadka magaalada jooga iyaga waxa laba arrimood bay leeyihiin dhinac way degdegaano kuyuga kuma fiicna qodobka labaad ay leeyihiin way cabasho badan markay ku yimaadaan cabashada ku badan maxaad saan u sameynaysaa maxaad kan u sameynaysaa taa laftigeedana iyadana hal la ogaado waxa isaguna jira dadka reer miyiga ah warqadan uu sito mararka qaar kood baa laga yaabaa inaanu aqoon oo waxa laga yaabaa islaantii inuu tii islaanta la yimaado isagoo isla taadi soo qaado dadku hadii xoolo dhaqatay yihiin halka iga soo saar warqadeedii baa wallahi hebelow tana filaya taadi inay tabarku meesha yimaado ayuunba ogaanaya warqadu sitaa inaan warqadeedii ahayn deetana inaad u sheegtaan inta soo cishaan sii joogaynaa waad noqon kartaa warqadaadii waad la soo noqon kartaa inaad si yaro degan aad runtii ugu sheegtaan baa iyadana leynooga baahan yahay waxa la idinka doonayaa inaad la timaadaan daacadnimo dulqaad dabeecad wanaag damiir xalaala ka koray iyo qaraabakiil intaasaa la idinka doonayaa waxa la idinka doonayaa damiirka xalaashii waa kii maxay samayn lahaa waa kii xaqiijin lahaa himilada qaran een u taagannahay ilaa markii aynu soo bilownay diiwaangelinta iyo habka doorashooyinka ee ina gaadhsiinaya hal qof hal cod reer maaha wax kalena maaha waa qofkuna magac buu leeyahay wax kale ma laha waa hal qof hal cod oo ku doorta kii uu ahaa